أذوق صومرا كل واقع مسير أذوق صومرا كل واقع مسير بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كان ما هو حنقول تلقى إن كجهلو قضية بيلها كبوي. أنا جو كحلا يا مرحلة شخصيا. أنا جو كحلا يا أورك أن كمسؤول كهاي أدور حقوق بيلها كبوي. أما بيلها لقيت تريد بدي هاي. نرهنتي وحربا إلى الموضوع أيضا ما أنت كسوقاته. dhibaatooyinkii iyo dulmigii iyo dilalkii lagula kacay shacabweynaha beelaha gabooye intii xukuumadda kulmiye ay waddanka qabsatay run ahaantii waxaanu nahay mujtamac ka mida bulshooyinka beelaha reer Somaliland waxaanu ka mid nahay ummadda hoos harsata qaranka iyo calanka iyo ciidda especially dawladnimada harsata ayaanu ka mid nahay oo aan run ahaantii lahayn cudud weyn iyo hub ay maanta iskaga difaaci karaan dhibaatooyinka lagu hayo waxaan ognahay 2010 markaan ka soo bilaabo waqtigii xukuumadda kulmiye waddanka timid dilalka beelaha gabooye loo geystay ee ula kaca ah ee aan garsoor helin ee aan cadaalad helin ee aan xukunkeedii helin ee ilaa iyo imika iyaga in la cadaalad siiyo iyo iyaga in la xukun la cadaalad mariyo daaye iyaga dib loo xirxiro oo iyaga dib loogu geysto dulmi dilkii loo geystay xarig loogu daro oo ay xukuumadda kulmiye dawladda Soomaaliya ay ula kacaan dilal bareera iyo xarig bareera iyaga oo aan u garsoorin oo una soo xaqsoorin waxaan taa u leeyahay markaan urur ahaan ku hadlayo afka ururkayga aan kana hadlayo aafooyin dhacay ma keeno aafooyin been ah waxaan hayaa aafooyin cadeymo leh oo hadday dokumentiya tahay iyo hadday sawirro tahay iyo hadday clip tahay intaba arkiifyada noogu jira waxaan aan ka hadlayaa inay wax facts ah oo dhacay oo dhibaatooyinkaas lagu sameeyay beelaha gabooye media social media hana ku jirta anaguna aanu hayno documentation ahaan reportna aanu ka sameeynay una dirnay dhammaan hay'adaha international community waxaan doonayaa inaan tusaale u soo qaato mujtamaca beelaha gabooye waxaa lagu dilay weerarkii ka dhacay xaafadda daami ee ay isku weerareen run ahaantii marka xaqiiqo loo eego laba reer oo ka mida reeraha wada dega xaafadda daami waxaa dhacday in dhagaxaantii la tuurayay inay gabadh uur leh oo beelaha gabooye ka soo jeeda in iyada iyo ilmihii caloosha ku jirayba dhagax lagu dilay xukuumadda Somaliland haddaba roolkay ku lahayd iyo talaabaday ka qaaday cadaaladii iyo garsoorkii iyo calankii laa ilaaha illallah maxamedur rasuulullah ay ku taalay ee bulshooyinka reer Somaliland ay horsaarsanayeen especially beelaha gabooye maxay talaabo cadaalad ku salaysan nooceeya bay ka qaaday xukuumadda Somaliland iyo xukuumadda kulmiye waxaynu wada ognahay in aan cidnaba garsoorka loo horkeenin dilka gabadhaasi ku dhacay oo gabadhaasi ay noqotay geeriyo maglaan ay ku dhimatay waxa la og yahay in mujtamacii gabadhaas ay ka soo jeedeen bulshooyinka beelaha gabooye saldhigyada maalinta laga buuxiyay oo la xirxiray wax cadaalad la mariyay iska daaya cadaalad iyo garsoor loo qaaday iska daaya iyagii dulmi lagu xirxiray waa policy-ga xukuumadda kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliland waqti xaadirkan ay ku leedahay beelaha gabooye okay waxaynu kaloo ognahay dhacdadii ka darnayd waxaynu kaloo ognahay mar labaad dagaalkii sarfeenka ahaa ee haddana ka dhacay xaafadda daami oo isla muddo ka dambeysay ka dhacay in xukuumadda Somaliland ay mujtamacii bulshooyinka beelaha gabooye oo hooyooyin iyo awoowayaal iyo waayeel leh oo dhalinyaro leh oo walibana dagaalkii sarfeenka ahaa dhinaca kaliya oo beelaha gabooye ay xabsiyada ku gurtay oo ay xabsiyada ku xidhay
ilaa ay ku qasbaan inay heshiis qasaba qaataan iyagoo dulman oo guryahoodii iyo xaafadoodii lagu soo weero waxa weeyaan haddaba garsoorka iyo cadaaladda xukuumadda kulmiye beelaha gabooye waa ta noocaa u dhigtay waxaynu ognahay dilkii caynaba ka dhacay ee rag booliis dareyskii booliiska xidhan intay saldhiggii booliiska galeen dadkii shicibka ahaa in ay ku dhex dileen qofkii u xidhnaa maxbuus ahaan u xidhnaa ee magangelyada waadna ognahay xuquuqda uu maxbuusku leeyahay hadday tahay international lowga iyo hadday tahay code of conduct lowga somaliland ay isticmaasho waynu ognahay xuquuqda uu maxbuusku leeyahay inta loogu galay xubnihii hablihii beelaha gabooye ka tirsanaa in inta loogu galay lagala soo baxay laguna jir dilay kadib saldhigii lagala soo baxo guryo lagu xidhay waa taa xukuumadda beelaha xukuumadda kulmiye iyo cadaaladda iyo garsoorkeedu waxaynu kaloo ognahay iyada oo ay jiraan dilal ka dhacay burco oo niman booliisi ay fuliyeen oo beelaha gabooye beel kamida lagu fuliyey dilkaas oo lagu dilay suuqa bartankiisa lagu dilay inaanay ilaa imika cid loo garsooray iyo cid loo xaqsooray aanay jirin oo ay beelaha gabooye noqdeen dameer baktiyey dulmiga noocaasa inaga haysta somaliland hayaynu haddana nahay dad u dhabar adeegay waxaynu nahay dad u sixran dadkan baynu u sixrannahay runta marka la doonayo waynu u falannahay dad waxaynu nahay aan ka damqan dhibaatada iyo dhibaatooyinka iyo aafooyinka lagu hayo iyo dulmiga lagu hayo taasina waa masiibada koowaad ee bulshooyinka beelaha gabooye ku habsatay dulmiga labaad ay noloshooda ka galeen weeyaan waynu ognahay diiniyan qofka naftaada iyo maalkaaga kugu soo doonta iyo gurigaaga kugu soo doonta haddaad ku jihaadaynada xalaal ay ku tahay dilkiisu haddana ma samayno waynu ognahay waxaynu ognahay oo kale intii xukuumadda kulmiye haysatay dilkii ka dhacay magaalada ceerigaabo oo iyaduna loogu geystay falkaas dambiyeedkaasi dilkaas loo geystay shaksi kamida shaksiweynta beelaha gabooye suuqa bartankiisa lagu dilay xukuumadda maxay uga garsoortay xukuumadda kulmiye garsoor cadaalad intee la agabaysiisay waxay siisay ma jirto cid loo soo qabtay iska daa hadalkeeda waxaa la xidhxidhay oo lagu qasbay dil kasta iyo dhibaato kasta shacbweynaha beelaha gabooye dhibaatadaasi ku dhacdo ayaa inta saldhig lagu buuxiyo lagu qasbaa inay heshiis qasaba qaataan oo ay qasab ku rimiyaan oo ay qasab ku saxeexaan heshiisyada noocaas oo kalea ma samayn karaan awood kalo ay hayaan ma jirto waxay ku qasbayin inay xabsiga kaga soo baxaan inay qaataan dulmigaas inay saxeexaan dulmigaas oy raalli ka yihiin oo ay dembigaas saxeexaan waxaynu ognahay in shaksiyaad beelaha gabooye ka mid ah loo adeegsado oy xukuumadda u adeegsato iyaga oo ku naas nuujinaya inay xukuumad ahaan ama ku cabsi gelinaya inay xukuumad ahaan shaqada ka erayaan haddaanu jawaabin oo aanu beenaynin hadallada noocaas oo kale ah waa shaksiyaad ka mid a beelaha gabooye ma hayada rol way kala ma hayo qofkaasi salarigiisii mishaharkiisu ilaashanaya waxa uu ku qasbaya markaa inuu xuquuqdii bulshadiisa beelaha gabooye iyo dambiyadii iyo dulmigii loo geystay in intuu midiyaha soo istaagay yidhahdo waa been horey u dhacday intay rag waaweyn midiyaha soo istaagaan yidhahdaan dalkayaga xuquuq baanu ku leenahay maantana aad midiyaha ka maqlayseen inay lahaayeen xuquuq kuma haysano dalka waxaynu wada ognahay xubnaha goolaha guurtida noogu jira goolaha wasiirada ugu jira beelaha gabooye ma hadli karaan dulmiga iyo dunuubta iyo xuquuq darada beelaha gabooye lagu hayo iyo cadaalad darada beelaha gabooye lagu hayo kama hadli karaan waa yesma waa xubin sharafeed aan cod ku lahayn waxaynu kaloo ognahay in xukuumaddii kulmiye iyo rejiimka kulmiye ee waddanka qabsaday dilalkii ugu dambeeyey ee ay fuliyaan shirqooladii ugu dambeeyey ee ay fuliyaan qaar siyaasadeed iyo qaar qacanka hadal ah loo geystay siyaasiyiintii beelaha gabooye ugu jiray xukuumadda iyo ugu jiray mucaaridka haddaynu mid usoo qaadno waad ogtihiin siyaasi cali cabdi saale wuxuu ka mid yahay beesha birmaal ee harsata dalada beelaha gabooye waad ogeydeen muuse biixi oo sheeganaya maanta mujaahid in uu maanta uu cali cabdisaayiq oo ka mid ah xukuumadda somaliland wasiiradeeda ka mid ah hadalladii deelqaafka ahaa iyo hadalladii cusuriyadda iyo nasabcayga ahaa ee uu kula kacay muuse biixi siyaasi cali cabdisaayiq ninka siyaasi cali cabdisaayiq oo maanta 12 sannadood xusbiga kulmiye ka mid ahaa u cadaalad u soori waayey oo u garsoori waayey oo u xaq soori waayey miyaa shacbi weynaha beelaha gabooye mid maanta madaxa la kacay oo beelaha gabooye ugu xaq sooraya xisbiga kulmiye xukuumaddu isagu usoo tartamaya maanta hellow ma dhici karto muuse mujaahid baan ahay buu leeyahay afka waxaanu kala xishoonnaa inaan mujaahidiinta shiishwanaag suuqa soo istaagno
waxaanu afka kala xishoonnaa inaanu anagu nahay mujaahidiin qalinka ku dagaalama oo afka ku dagaalama oo human right activities ah ayaanu ka xishoonnaa isaguna wuxuu jidadka la soo taagaya oo midiyaha la soo taagaya mujaahid baa lahay mujaahid waxaad ku tahay dulmigaad calcad saa'iq u geysatay mujaahid waxaad ku tahay shacbigii beelaha reer boorame oo aadlaysay mujaahid waxaad ku tahay shacbigii reer khaatumo ee aadlayseen ayaad mujaahid ku tahay mujaahid waxaad ku noqonaysaa shacbiga beelaha gabooye lagu xasuuqaya xaafadda daami iyo cabaaye iyo magaalada hargeysa iyo dalka somaliland helno waxaan leeyahay bulshooyinta beelaha gabooye dulmiga inaga haysta somaliland waxaynu u baahannahay war haddaynan awood iyadoo dhaqaale aynu hubsiisano inaynu kula dagaalano aydaan maanta awoodi karin waxaynu u baahannahay inaynu noqono dad codkoodii kula dagaalama fartaas aynu kula dagaalano muuse bixi iyo mujaahidnimadu sheeganayo oo shacbiga beelaha gabooye uu ku gumaaday oo uu ku gumaaday aynu kula dagaalamo oo aynu codkeena ka codayno oo aynu codkeena siino xisbiga inoo cadaalad iyo garsooraya hadduu kaasina inoo garsoori waayo beri waynu kala noqonaynaa cod kalsoonideena haddaan idiin sheegay waxaan anigu idin leeyahay waad ogeydeen barkhad wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta da-da yar ee run ahaantii roolka wanaagsan ka ciyaaraya arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda somaliland isaga oo ku dulman xukuumaddii uu ka tirsanaa ee uu u ahaa la taliyaha beelaha la haybsooco waayo uu madaxweynuhu digreeto ugu soo saaray beelaha la haybsooco waayo haddaanu discrimination meesha jirin oo policy discrimination ku wajahan beelaha gabooye aanay siyaasadda kulmiye aanay kow ka ahayn muxuu usoo saaray digreetadii uu ku qoray beelaha la haybsooco ayaan u magacaabay war ma beel la haybsooco miya dawladdu mayna ahayn tii dadka u xaq soori jirtay ee dastuurkeeda ku taalay muwaadin kastaa uu siman yahay xuquuqda dalka been bay ka sheegeen dastuurka somaliland calanka laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah ay ku qoran tahayna been baa laga sheegay waana dunuub iyo masiibooyin ayaa ka dhalan doona waana la arki doonaa waxa aan kale oo aan maanta rabaa in aan ka hadlo waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo dadkan beelaha gabooye ee ku dhaqan somaliland walaalayaal codkiina ayaad ku ciil bixi kartaan codkiina ayaad kaga aargoosan kartaan walaal waan ogahay waxaad tihiin dad ciilan waxaan ogahay ka siyaasadda noogu jira ee xukuumadda kulmiye ka tirsan ee golaha wasiirada noogu jira ee golaha guurtida noogu jira ee dawladda u shaqeeya inaanu hadli karin waan ogahay haddaad xataa aniga noo soo jawaabtaan oodna soo caydaan waan ogahay in mawjado idinka xoog badan idin haystaan oo laydinku qasbayo inaad noo jawaabtaan waan ogahay in laydinku qasbayo oo aad qoorqabad aad ku riminaysaan ood qoorqabad ku laydinku cabsiinaya biyo waan ogahay jawaabtiinu se macno badan annaga noo samayn mayso waxaa macno noo samaynaya inaanu noqono dad taargadgaraysta cid kasta oo dulmi iyo dunuub ka gasha inaanu qalinkayaga iyo hadalkayaga iyo afkayaga kula dagaalamo annagoo u bandhigayna bulshada caalamka hay-adaha xuquuqal insaanka united nationka midowda africa european unionka carab leagueka annagoo intaaba ribooda u qorina waxaan u sheegayaa xisbiga kulmiya 14 ribood baanu ka sameyn 14 ribood kii ugu dambeeyey ee riboodkii ugu dambeeyey aanu ka sameyno dulmigii iyo daliilkii loogu geystay somaliland beelaha gabooye loogu geystay waxa uu ahaa riboodkii ugu dambeeyey aan ambassadorkii ugu dambeeyey ee united nationka soomaaliya u fadhiyey ambassador Mikhail Keating ayuu ahaa riboodkii ugu dambeeyey aanu gudbinay haddana 4 ribood oo kale aanu wadnaa insha allahu tacaala aanu rabnaa in aanu Brussels aanu geyno oo aanu xarunta jimcida qurumaha ka dhaxaysa Geneva aanu ka degno oo aanu qacanteeda ugu waxayno waxaanu isku dayi doonaa inaanu muddo dheer aanu ka shaqeyno sidii shacbiga beelaha Soomaaliland shacbiga beelaha gabooye ay mudaharaad salmiya uga sameyn lahaayeen United Nations horteeda safaaradaha hortooda iyo meel kasta oo aanu codkayga gaarsiin karno waanu wadnaa waanu sameynaynaa taa waxaan u sheegayaa muuse iyo xukuumadda xisbiga uu wato waxaan leeyahay ninkuu yidhi sinaan mayno aadna buri sarreyntiisa sadka waad wadaagtaani ma 9 baa tiiso muuse waxa aanu ku tusaynaa in xaafadda daami codkooda aad ku dulowdo ood ku midgaanowdo oo aad midgaan ku noqoto adigu ayaan ku tusayaa oy beelaha gabooye nasab ku noqdaan oy beelaha gabooye muuse dariye leh ee madhibaan leh ee tumaale leh ee hawlo leh ee wardheelo leh ee xaafadda daami iyo somaliland iyo cabaayo ku dulma in ay codkooda midgaan kaaga dhigaan adiga ayay ku tusayaan waana ballan taasi aanu ilaahay ugu nidar galnay waxaanu ognahay shacbiga iyaga waana ognahay social media hanu ka wada xidhiidhnaa annagu haddaanu nahay aqoon-yahanka beelaha gabooye xaqa waxa aanu ku adimaynaa qalin xaqa waxaanu ku adimaynaa hadal
mana noqon doonto mid aad adiga iyo rejiimkaaga aad nagu caburisaan waxaanu joognaa waddan xor ah oo aanu anagu noo fududaynaya maanta inaanu United Nationka iyo meel kasta oo international community-ga inaanu cabashadayada iyo dhibaatooyinka lagu hayo report ka sameeyo inaanu hor dhigno waana la dhageystaa